بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada janalkeena gacmo furan iyo qalbi saafi ah. waa idin soo dhaweynaya Soomaali weyn, waana idin salaamaya meel walba joogtaan. maalin wanaagsan, alxamdulilah, waa nabad qabaa, waana caafimaad qabaa. adiguna sidaa iyo si lamid ah ayaan ku rajeynayaa wanaag iyo caafimaad iyo nabad inaad ku noolaato. caafimaad iyo nabad inaad ku noolaato. mawduuca aan maanta ka hadlaayo waxaa waaye dhalinyarada, dadka xiriirada sameynayo amba xiriirada ku jiro, hadeer wiilal ha ahaadaan amba gabdhaha ahaadaan. waxaa jiro hadalo, su-aalo aadan weydiineynin gacalihaaga amba gacalisadaada, qofka aad xiriir wadaaga tihiin aad rajeynaysaan inaad guri wada yeegleeshaan haddii ilaahay qadar insha allah. aadan ku dhihin hadalo, waxaa su-aalo iyo hadalo aadan ku dhihin. horta tan ugu horeysa waxaa waaye guul daradaada mar walbo ha uga sheekeynin lamaanaha, haddaad wiil tahay iyo haddaad gabar tahay. mar walba waxaa waaye sheekooyinkaaga yaysan noqon inta badan guul daradaada. mararka qaar sheeko waxaa waaye sheeko haddii ay ku imaato wax dhibaato ma lahan. sheeko ku imaan kartaa, waa mararka qaar waxaa waaye caadi waaye. laakiin mar walbo yaysan noqonin qofka aad jeceshahay inaad ugu sheekeysid guul daradaada yaysan noqonin. qofna ma jecla qof fashilmaayo. markii runta laga hadlaayo psychology ahaan adoon ogeyna qofki kaleenta waxaad tusinaysaa dariiqii inuu kaa tago ayaad tusinaysaa. qof jecel ma lahan mar walba guul daro ma jecla. dadka oo dhan waxay jecelihiin dadka kartida leh, dadka maxay ahaatay noloshooda meel kasoo saaraya, dadka guusha jecel, dadka guuleysanaya. qof walba wuxuu rabaa qof karti lahu rabaa. marka haddii guuldarada mar amba laba ama saddex dhib ma lahan, sheekay ku imaan karta. laakiin maalin walbo yaysan noqonin sheekooyinkaaga oo gacalisadaada amba gacalihaaga aada ugu sheekeynaysa yaysan noqonin. qofka aad xiriir wadaaga tihiin su-aalo oo haweydiin oo ha dhihin aniga maxaa igu jeclaatay. su-aal qaldan waay. maxaa igu jeclaatay, maxaa aniga ummadaan dhan maxaa iga soo dooratay. dadka qaar laga yaabo inay weydiiyaan su-aashaasiti waxaa qofkii waxaa siinaysaa attention inuu isdhaho qofkan maxaa ku jeclaatay. maskaxdiisa inuu la fariisto, inuu barbardhig uu kugu sameeyo, uu ku sameeyo adiga iyo dadka kaleenta. haddaad gabar tahay iyo haddaad wiil tahay, gabadhin saasoo kaleenta waxay bilaabaysaa inay barbardhig kugula sameyso dadka kaleenta iyadoo iska warqabin. adigaa sii attentionka soomaa, adaa usoo jeediy. maxaa igu jeclaatay oo ummadaan iga soo dooratay. waxay kaloo cadeynaysaa in adiga aadan isku kalsooneyn. waa adigoo dhahaay aniga jeceyl ma mudni oo kaleente, adoon ogeen adiga iskaba warqabtid. waxaa laga yaabaa iska weydii inay kaa tahay. laakiin su-aalaha qaar waxa waaye psychology ahaan ma qurux badna. maxaa igu jeclaatay ha weydiin. qofka wax in lagu jeclaado waa mudan tahay. qofkaad tahay wiil ahoo gabar ahaaw waa mudan tahay in lagu jeclaado. maadaama adiga aad wax jeceshahay, aad qalbi nadiif aad leedahay, waad mudan tahay in lagu jeclaado. waana lagu jeclaana. jaceylkana arsaaqad waa soomaha risiq waa ilaahay subxaana watacaala kuu soo arsaaqaa qofka aad jeceshahay. ha weydiin maxaad igu jeclaatay. goormee jaceylkaaga bilaabmay oo kaleente ka qurux badan goormee yani. laakiin maxaa igu jeclaatay ma qurux badna. ha weydiinin su-aalaas. tan kaleente oo waxaa waaye dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha, aniga la-aantaa ma noolaan karo. haddaad iga tagtid waa dhimanaya. aniga saa noqonayo ma ogi, waa dhimanaya maa. laakiin waxaa waaye dadka qaar xidhaan aniga haddaad iga tagtid nolosheeda si ay noqonayso maba ahaano, la-aantaa ma noolaan karo. hadalada waxaa waaye hadalo aan qurux badnayn waay. qofki kaleente wuxuu dareemayaa in jaceylkaaga uu yahay jaceyl heesashe ayuu dareemaya. adiga kama warqabtid, adaa tusinooyo, adaa aasas ama asigan saas uu arkaya inuu yahay jaceylkaagii jaceyl oo heesashe ma ahan jaceyl oo fiican. qofka bini aadanka wuxuu jecel yahay inuu xor ahaado. qof walba xoriyadiisa wax uga jecel yahay malaha. laakiin qofku markuu ku dhahaa aniga haddaan kaa tago, haddaad iga tagtid ma noolaan karo, maxay ahaatay nolosheeda haddaad ka baxdid bis waay. qofkii kale waxaa dareensiinaysaa gudahaagana inay ka jirto daciifnimo iyo kalsooni daro adoon iska warqabin. waayo
dadka bini aadanka xorriyaday jecel yihiin qof walba inuu heesto oo jecel mana dabeecadeena oo bashariyada waxaa waaye xorriyadan jecelnaha anaga inaan xor ahaan qofka hadduu noloshaada uu rabo xataa inuu ka baxo dad waxaa jira soomaa amba wiil ahaado amba gabar ahaado way ku meermeerinaysaa maanta oo dhan haddii ay gabar tahay ama haddii uu wiil yahay qofkii kaleento horta gabdhaha waxaa waaye way ku meermeerinayaan inta badan qaarkood deysan ku rabin wiilasha xataa qaarkood laakiin waxaa waaye qofkaasoo kaleente adigaa waxaa laga rabaaba hadduu qofka aad ka dareentid markaad la socotid in uu maxay ahayd uusan rabin joogitaan inaad tusti dariiqi uu mari lahaa oo ka bixi lahaa aad tiraahdo jidkaas mar jidka laga baxaayo inta waaye mar aad u tilmaantid waayo qofna qasab kugulma joogaayo soomaa wax walbana waxa waaye risaq waa ilaahay subxaana watacaala hadduu qofkan kuugu talagelay inaad guri aad isla yeegleeshaan aad isla sii noolaataan ma jiraayo mana joogaayo marka adiga qalbigaaga aad ha isla haysiinin qofka ha isla haysiinin qalbigaaga waxa waaye jaceylka ilaahay ka buuxi qofkii aad jeceshahay waad jeclaan kartaa laakiin asagana hadduu rabo inuu kaa tago u ogolow noloshaada inuu ka baxo markaad dhiis aniga jaceylka aniga waa ku jeclahay waa dhihi kartaa no problem laakiin waxaa waaye aniga la-aantaa ma noolaan karo haddaad iga tagtid si aan noqonayo ma aqaano waxaad muujinaysaa gudaha kalsooni daro koow iyo daciifnimo ayaad muujinaysaa marka qofka aad jeceshahay haddaad rabtid inuu kula joogo hadhihin la-aantaa ma noolaan karo waay oo la-aantiis adoo noolaan karin qof noloshiisa ay ku xiran tahay ma lahan qof walba waxa waaye haddii ilaahay ugu talagalay inaad isla noolaataan waa isla noolaanaysaa hadduu ilaahay ugu talagalinna waxa waaye waa baxaya soo khayr kuumaha ambaa way bixaysaa khayr kuumaha mid kale imaanaya ambaa imaanaysa marka nolosha iis in loo qaataa qurux badan soomaa dhibaatooyinka nafsadeed waxaa keenaya noloshii oo maxay ahayd dadka isdhibayaan oo maxay ahayd laka hadaad baratid sidaad u dhaqmaysid oo wax walba aad iis aad u qaadatid noloshaada wax walba waxaa waaye ku furmay wax walba aad ogolaatid xataa haddii qofkaa baxo okay qofkan aniga malihi hadduu iga baxay munaasibkeyga ma ahan hadday iga baxday munaasib iima ahayn qof kale intaa helayaa iisi u qaado laakiin aniga la-aantaa ma noolaan karo haddaad nolosheyda ka baxdid maxay ahayd si aan noqonayo ma aqaano hadhihin qofka aad jeceshahay waxaa waa adoon ogeynaad waxaad bixinaysaa attention inuu kaa tago qofkii hadhihin mana qurux badna soomaha qofka aad jeceshahay jaceylka waa muujinaysaa oo kaliya wixii awoodaada sameynaysaa laakiin adiga qasab kuma lihid qofka inuu kugula joogo tan kaleenta waxaa jira dhalinyaro oo isweydiiyaan su-aalo oo cajiib oo marnaba ay qurux badneen inaad dhahdid qofka aad jeceshahay haddii uu wiil yahay haddii gabar tahayba inaad dhahdid maxay ahayd emoji jaceylkaaga aniga inaad jeceshahay maxaa caddeynaa ii caddeey jaceylkaaga idareensii inaad jeceshahay idareensi سواء جعلك بتوكسنا سين توكس عمل وحلا متها أدو توكسنا عمل أو ده هاي توكس جعلك يا توكسنا سا توكس عمل وان هذه إيموجي جعلك وموقنايا خفك كجعل وحواي إيموجي يعدي إن جعش هاي أدو نهين جعلك أسجع موقنايا وأحقر صوما ما خفك جعل وحواي وناجيسه haddii mararka qaar waxa way gaabina imaan karto oo qofka kaleent waxa laga yaabaa mashquul amba wax kale inuu haysto u gaabiyo marka adiga xoogaa sabiraad muujinaysaa sooma xoogaa dulqaad qofka aad jeceshahay mar walba waxa way naxariis aad u muujinaysaa dhowl cadeen aad u muujinaysaa waa soo jiidanaysaa laakiin ma tuugsanaysid jaceylkii ma tuugsanaysid haddii aad aragtid qofkan inuu rabo inuu noloshaada uu kasii baxon waxa waaye arlad ilaahay waasac waa jidkaas ka baxaa dhehaysaa bax layskuma dhadhajiyo dadka mana laysla heesiye waayo waxaan irsaaqad waay qofka aad jeceshahay irsaaqad waa qofka ku jeclaana irsaaqad waay ilaahay qalbiyada xukum soomaa anaga qalbigeena waxa waay maba lihiin marka haddii aad jeclaatay xataa qofka waxa waay inaad isxakamaysid hataa mararka qaar haddii uu gaabiyo waxaa laga yaabaa qofka inuu mashquul kale u haysto in maxay ahayd maxaa kugu dhacay waa weydiin kartaa maalmahan maxaa ku helay waa weydiin kartaa laakiin emoji inaad jeceshahay maxaa cadeynaa inaad jeceshahay dareensii jaceylkaaga su-aalaha qaar waxa waaye isweydiiyaan waaye dhalinyarada maanta kaliyeed baa dhalinyaradii oo raxtaa laga helaya jaceylkii marka haddii ay noqoto in la tuugsado ama xiriirka qofka kale inta kaala dhexeeyay wax qurux badan ma ahaanaa marka ha tuugsanin tuugsiga wax qurux badan ma ahaan noocuu rabo ha tuugsanin jaceyl ha tuugsanin wax walba waxa waaye ilaahay rasaaqa jaceylkiisa kugu soo arsaaqo qofka ilaahay uu jecel yahayna
ilaahay ha ku jeclaysiiyo waayo qofaan ilaahay aqoonin ee jaceylkiisa waxba kuma taraayo mar walbana waxaa lagu duceystaa ilaahayowna sii jaceylkaaga nagu arsaaq iyo qofka adiga aada jeceshahay ayaa lagu duceystaa marka qof waxa waaye xiriirka ilaahay baan wanaajinayn hadda jaceylkiisa waxba kuma taraayo marka jaceylkaaga wanaaji qofka aada jeceshahay ha weydiinin su-aalaha qaar aniga la-aantaa ma noolaan karo aniga dad iga tagti si aan noqonayo ma aqaan aniga horta maxaa igu jeclaatay ba ani waxaa waaye waxay caddeynaysaa wax lagugu jeclaado inaan lahayn camal aa ka dhigaysaa maxaa igu jeclaatay horta aniga su-aasha waxay u ekaanaysaa in aadan lahayn wax lagugu jeclaado wax mumaysaad wax wanaagsan oo lagugu jeclaado inaadan lahayn ayaad qofkii kaleenta aad tusinaysaa marka waa mudantaa in lagu jeclaado maadaama aad tahay ruux ilaahay karaameeyey oo qalqay rabbiga casaawad jalaha oo ku karaameeyey waad mudantahay in lagu jeclaado adigana aad wax jeclaatid marka qofka aan jecel haysan isagana wax jecel haysan ilaahay kugu soo arsuqo kuwa aan wax jeclaan karin oo qalbiyadooda xoogaa ay khaleer tahayna waxa waaye ilaahay qalbiyadiina ha jilciyo waxa waaye nolosha oo dhan haddii wax walba jaceylka ma ahan kan lamaanaha oo keliya laakiin wax walba jeceyl naxariis haddii ay tahay nolosha oo dhan waxay noqonaysaa mid qurux badan oo nabad lagu wada nool yahay ayay noqonaysaa marka waa ku mahadsan tahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisay videogan video waxay intaan kulmi doono waxaa idinkayga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaaw